ما لها وينوية ثم جنواس لنا عيادية وحنوصنا دخلنا العادي وأحوالنا يقاضى بقى ويحن قدنا دخل ما جربه وده وحن بنا قد يسبب ويحن هلا ويهل الجنة يبقى حبة مصانع وما سبب فتنا يبقى حبة يوم مهلي subax walba waxa ay u soo kalahaan oo ay u soo jarmaadaan goobaha bakhaarada hortooda si ay uga shaqaystaan oo ay uga soo saaraan quutal daruuriga ay cuni lahaayeen qoysaska ka dambeeya oo ay subax walba ay u soo kalahaan nolosha dadka iyagu ku shaqaysta kaariyoonka ama gaari gacanka ayaa waxa soo food saartay oo saameeyay suuq xumo iyo sixir bararkan baahsan ee guud ahaanba ka jira dalka subax walbana waa ay soo kalahaan oo kama baaqsadaan waxana ay u soo kalahaan sidii ay nolosha dadka iyaga ku tiirsan ay ugu soo saari lahaayeen quutal daruurigooda waxana nusaaka u kurgalnay xaaladda dhabta ee ay ku shaqeeyaan dadka ku shaqaysta gaari gacanka ama kaariyoonaha dadkani oo u badan dad waaweyn ayaa ku shaqeeya nolol adag taasi oo ay qaarkoodii sheegeen in muddo 30 ilaa 40 sano ay ku soo shaqaysanayeen kaariyoonaha waqti xaadirkan la joogana oo soo food saartay suuq xumo baahsan taasi oo ay sheegeen in maalintii isku celcelis ahaan ay soo shaqeeyaan 10 ilaa 15 kun oo shilin inta u dhaxaysa haddaba qaar ka mid ah dadka iyagu ku xoogsada gaari gacanka mudana ku soo shaqeynaya ayaan waxaan wax ka weydiinay nolosha hadda ay ku shaqeeyaan iyo sidoo kale farqiga u dhaxeeya nolosha sanadihii hore ay ku shaqeyn jireen berigii hore kaariyoono baa shaqeyn jiray oo ilaa Cali ilaa waxaan geyn jiray halkee imikana dee bijaaj baa gurto waxba baalka dee kuma hele kolkaan u yarahay 15 waxbaan ku helaa marka shaqa kuma aynaba dee waan dul fadhinaa muddo inta lag baadeen cabdi aad ka shaqeyn jirtay ma taqaanaa noloshan kaariyoonka ama muddo inta lag ayaad ku soo shaqeysan jirtay 40 sano muddo 40 sano oka qoys inta lag ayaad ka biilisaa ama aad ka masruuftaa waa 6 ciyaal ayaad ka masruuftaa ayuu iskoolka ka bixiya oo madrasada kaga bixiya hadana waxa baan ururiyaa oo masaarifna ka siiya marka ilaahay ba hadana de waxa loo yar barakeeya isku celis ahaan marka aynu eegno waqtigii hore muddo 40 sano aad sheegtay inaad ka soo shaqeynaysay kaariyoonka masaariif inta lag baad waqtigii hore aad ka heli jirtay hadda sebalka waran 200 baan ku heli jiray markaan u yarahay berigii hore imika maxaad geeli waa 15 marka maanta oo dhan 24 saac shaqayso ayada ma 20 heli ama 15 heli biyo waa adiga arko 15 bay foosto noqotay wax yaroo galaan miisoo habeenna la qadayo habeenna la cunay sax oo de ka cuna qabatay wixii yaraan haddana iskool u ururinayno iskoolkiina waa adiga arko waa iib oo lacag baa la bixiyaa waxba kuma hayno noloshii hore waagii hore bakhaarada ka hor rakaabsan jirnay ma garanaysaa yoomka waan ka heli jirnay imika kolkaan soo kalahno bakhaarkaan soo dhigano wixii aan ku qaadi lahayn bashaash baa qaata ma garanaysaa waxba yoom kuma hayno waan wadnaa waxaan la saameeyay sixir bararka iyo ma garanaysaa yoomkii aan ku helayno kuba helinba oo annaga oo isku hoyno unoon baarbaxana ku hayn qoys reer baan ku masruufaa caruurtu waa 5 waxa weeyaan aan ku masruufay kolkii hore de masruufka waan uga helayay imikase wax masruuf oo uga helay maba jiraba kaariyoonkii kiradiisa la igu yeeshaa kaariyoonkana waan soo kireystay ka waran nolosha maanta nolosha wallahi xaalkeedu iska adag yahay shaqada sanna ma hayno waa meelaha ma jirjoogna waxa gaarsan ma qaadna baa waqtiyadii hore roonaa imika waqtigan imika noogu adag marka imika waxa weeye sidoo hore ma aha dhulku kaariyoonkna waa iska bajaaj baa dhulka kala baxday marka qoryaha san kuraa kaariyoon sax kuwaas inta maaleen la helo iyo maalin la waayo marka waxa weeye waa sicir barar dhulka ka dhacay waxa weeye sidoo hore dhulku waa isbeddelay ku marka waa maalinta magarasay la helo iyo maalin la waayo wallahi marna waa helna marna waan weynaa waxaan qaysay baalaan qaysay baalid ma waxay leeyihiin mashaash ma saarayna maalin weynaa ثم جنواس لنا عيادية وحنوصنا دخلنا العادي وأحوالنا يقاضى بقى ويحن قدنا دخل ما جربه وده وحن بنا قد يسبب ويحن هلا ويهل الجنة يبقى حبة مصانع وما سبب فتنا يبقى حبة يومين وقت كده هرب صارف أطلقوا فلوس هني تفرق يبقى كسب صارف تواسكا على سهام ومالد الله هلا يمال له وايو حق بشات تسكوت شو بخارده wax ka gurtay barsaad wax ka gurta sax marka anaga taas wax saameyn lagu yeelata taas jirta
nolosha maantana saamaysana waa nolol aad u fudud waayadii hore masaariifta yar waan heli jirnay laakiin maanta sanad intan bijaajo ay timid wallahi kuma helno waxa naga soo galaysa 20,000 ama 15,000 toban carruurna waan dhalday waxa la wax ku helno ma jirto waxaan ka codsanaynaa dadweynaha ku nool magaalada Boorama gobolka Awdal waxa way macaawimo wala keenaa kaariyoolnaan waan nahay ilaahay ma wacid macaawisa ma jirto nalama siiyo macaawimada la keenana lama siiyo sida noloshan ku noolahay nolosh dhimasho dhaanta weeye hana la caawimadaana laga qayb geliyaan leenahay Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buri magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.